inta ku dhimatay ilaahay u naxariistaan leenahay intii maaragtay waxay ku dhaqmaayeen oo maalahay ku weysana ilaahay bedel khayr leh hasi ayaan leenahay ujeedada aan isugu nimiday waa laba qodobka koowaad wuxuu ahay xaaladda degdeg ah ku jirno inaan ka tashano sidaan wax ugu qaban lahayn dadkayna dhibaataysan oo geedaha saaran oo guryaha korkooda saaran qaarna iyagoo meydha la la-yahay qaarna ay dhibaatadaas ku dhex jiraan sidaan wax u qaban lahayn bal inaan ka tashano sidaad ogtihiinba madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle guddiga uu magacaabay oo arrintan guddiga gurmadka degdeg ah oo magacaabay asiga iyo guddiga intiisi badneedna waxay shalay ka degeen meesha la yidhaha beledweyne goobtii ay ku sugan yihiin laakiin annagana waxaa nagala rabaa meel kastee aan joogno inaan maaragtay guddi wada nahay guud ahaan inta ku sugan dowlad goboleedka hirshabeelle dhammaanteen guddigaan nahay in la wada istaago dal iyo dibad in la wada istaagaa la rabaa sidii wax lagu qaba lahaay loo istaago xaaladda ka jirto waa xaalad aada u culeys badan ilaahay maaragtay xaggiisay ka timiday waxaan leenahay ilaahay bedel khayr oo degdeg allaha keeno guud ahaan waxaan ugu baaqaynaa muslimiinta iyo cid kasta ee gacan ka geysan karto in xaaladaas emergency-ga ee musiibada ee musiibo rabaaniya ka dhacday deegaanadaasi in wax laga qabto cid kasta gacanta ka geysan karto inay ka geysato ayaan maaragtay ugu baaqaynaa gaar ahaan ummadda hirshabeelle waxaan leenahay hadday dalka joogtay hadday dibadda joogtaba war fadhiga ha laga kaco dadkiina geedahay dul saaran yihiin war fadhiga ha laga kaco waa dareemi kartaa qof daruufo ku kaliftay inay geed dushiis ku hoyato ee 24 saac saartay ama 48 saac lababa way dhici kartaa inuu geedku la jabana way dhici kartaa inay qoftaasu tabaru qabato geedkii saarnaa weyso geedka ka soo dhacdo ee biyo ay maaragtay ka kortay hoosteeda ku jira ay ku dhacday ku maaragtay ku nafaysana way imaan kartaahe war ha la isu gurmado oo sida uga dhaqsaha badan qof waliba wax alla waxay qaban karto ha qabato arrintaas ha loo dhaqaaqo arrintu arrin heer istayda waa ka weyn tahay arrin heer maaragtay qaran iyo arrin weliba waxaan dhihi karnaa waa arrin heer caalamiya cid kasta gacantay ka geysan karto arrintaasi ka geysataan leenahay cid kasta ee ka jawaabtay ee la dhibsatay ee la danqatay musiibada ka jirto deegaanada hirshabeelle gaar ahaana degmada beledweynena waxaan leenahay ilaahay idinka abaal mariyo walaalo badan oo isteedyada jooga iyo walaalo badan oo caalamka kala jooga ayaa maaragtay ka jawaabay ama ka danqanaya dhibaatada ka jirto degmada beledweyne ay ugu horeyso maaragtay dowladda federaalka madaxdii dalka ugu sarreysay dadaalka ay ugu muujiyeen iyagana waa uga mahad celinaynaa waxaa nagala rabaa inaan fadhiga laga kaco qof waliba meeshay joogto iyo waxay qaban karta ay qabato gaar ahaan guddigii la magacaabay goob kastay ku sugan yihiinba inay shaqeeyaan gaar ahaanna maaragtay guddigii oo madaxweynuhu magacaabay qaybta ka joogto caasimadda dowlad goboleedka hirshabeelle inay iyaguna meeshooda faraysi ka sameeyaan degmooyinka gobolka shabeellada dhexe guud ahaan in maaragtay laga dhaqaale laga aruuriyo qof waliba wixii tabarteeda ay sidaqaysato maanta walaalkaa ku badbaadi berrina adigu ku badbaad maalinta qiyaamana adigu ku badbaad maantana walaalkaa ku badbaadi waayo qofku waxay awoodto habixis ayaan leenahay qodobka kaleentood oo maaragtay aan isugu nimiday waa furitaanka baarlamaanka wadagooda baarlamaanka ugu xiraay laakiin waxaa loo furay xildhibaanada codsi ka yimiday in arrintan emergency-ga iyaguna ay qayb ka noqdaan ee loo furo madaxweynihii la xiriiray madaxweynihina anigoo isoo wakiishay wuxuu yidhi adigoo wakiilga ee baarlamaanka in la furo si ay uga qayb qaataan dhibaatada ka taagan hirshabeelle ee daadad kale ee amni leh inay qaybtooda ka qaataan oo la shaqeeyo waad ogtihiin baarlamaanka waqtiga ugu hela waa sanad hindasi sharciyadeed badana hor yaallo guddiyadii la rabaa haddii ay raalli ka noqdo madaxa bannaanay in la ansixiyo howlo badan oo dastuuriya hor yaallo shaqo badanaa noo taale muddadaas wax inta ka dhiman waqtiga muddaxileedka inaan wixii dhiman oo dastuuriya la qabto asigana baarlamaanka laga rabaa haddii ay raalli ka noqdo waxaan aad ugu celcelinayaa arrinta ka taagan degmada beledweyne waa arrin aada u xanuun badan inaan fadhiga laga kaco la isku tashado guud ahaan hirshabeelle dhibaatada ka jirta laakiin gaar ahaan degmada beledweyne ayaa u sii daran
ودتك قاركود ميتكود واجل لا هي دمنا جيرها يسارين هيني يوم إحنا قبل كرر قبضوا فرق لك عن ماركتيا عطنا كلها هاي هذه على دمها سنتين هذه على دمها سنتين لقى بالله وما ترى أنا وكيله مدحويني دول الجولاتك برلمان كفاية وطلبات سلاسل لوجو فري هاي هذه على دمها سنتين هذه على دمها سنتين كفاية وطلبات سلاسل لوجو فري هاي إن شاء الله وحكى بني أنا مصيبة